السلام عليكم على خطاب walaalkayga qaaliga ahow iyo walaashayda aad iyo aad baan kaaga mahad celinayaa daawashadaada quruxda badan. waxaa tahay qof igu qaaliya, qalbigaygana ku qaaliya. rabbi subxaana watacaala waxaan kaaga baryayaa waxaa mid dhigo kuwa guuleysta adduun iyo aakhiro, adduunkana meel sare ka gaara, aakhirana jannatu firdaws. runtii walaalayaal, markasta waxaan ku dadaalaynaa in aan noloshiina dhanka wanaagsan aan u bedelno. rabbi subxaana watacaala ayaa idin bedeli karaa, laakiin insha allah anigu dhiirigelin unbaa wadnaa inaan idin dhiirigelino, idinkuna aan na dhiirigelisaan. waan is dhiirigelinaynaa, adiguna ad dhiirigelin, aniguna aad aan ku dhiirigelinaya. si qurux badan maaha? insha allah aan bilowno. maanta waxaan ka hadlaynaa walaalayaal caqabadaha caqabadaha nolosha kula soo gudboonaanaya. ka waran walaal, haddii wax walba oo aada u baahan tahay aada heli lahayd, wax walba adoon u dhibtoon, adoon u dadaalin, adoon u rafaadin, adoon caqabado kula soo gudboonaan, wax kasta si caadiya. qaarkiin laga yaabaa inay dhahaan waaba si wanaagsanba, ya laga yaabaa inaad u aragtaan inay fiican tahay, inay qurxoon tahay arrintaas, laakiin runtii sidaas maaha. waxaad noqon doontaa qof daciif ah, waxaad noqon doontaa qof wax matara, waxaad noqon doontaa qof aan nolosha wax fikradaba ka haysanba. maxaa yeele walaal, meeshaan janno ma aha, meeshaan waa adduun. caqabado ayaa kula soo gudboonaanaya. caqabadahaasoo dhan markay kula soo gudboonaadaan maba garanaysidba sidii aada uga gudbi lahayd. maxaa yeelay iyagoo kale horay umaadan soo arag. runtii suurtagal ma ahan inaad garaad sare yeelato haddii aadan wax badan akrin. suurtagal ma ahan in aad meesha aada rabto aada gaarto haddii aadan caqabadaha iyo dhibta aadan u adkaysan. suurtagal kuuma ahan inaad guulo wax ku oola aada xaqiijisid haddii aadan isbeddel la iman. isbeddelku walaalayaal ma ahan mid imaado waqti munaasaba. isbeddelku ma ahan midka adig kusoo raadsanaya, waa inaad adigu aada isbeddelka raadisid, waa inaad adigu isbeddelka aada la timaadid. allah subxaanahu watacaala wuxuu dhahay ina allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiruu maa bianfusihim. allah subxaanahu watacaala qoom waxay ku jiraan kama bedelo, yani xaalad ay ku sugan yihiin ilaa iyaga naftooda iska bedelaan. haddaba haddii aad rabtid inaad gool gaartid ama meel sare aada gaartid, marka koobaad waa inaad adigu isbedeshaa. haddii aynan dhib kula soo gudboonaan, haddii aynan nolosha kuga adkaan, haddii aadan soo rafaadin, haddii aynan caqabado kula soo gudboonaan, haddii aadan ku dhowaan inaad quusatid, haddii aadan intaas soo marin, runtii nolosha meesha aad rabtid ma gaaraysid. walaal, runtii riyo wax laguma helo, waa in aad ficil la timaadaa. waa in waxa kaa dhex guuxaya aada ku dadaashaa inaad u badashid ficil, inaad ku dadaashid sidii aad ku gaari lahayd. walaalayaal, dhibtu iyo caqabaduhu waa saaxiibkaaga. waa midda kaa dhigaysa qof dulqaad badan, waa midda kaa dhigaysa qof awood leh. runtii adigu waxaa tahay qof awood badan, in ka badan inta aad naftaada ka aaminsan tahay. sidaan ogahay adiguna aada og tahay, nolosha caqabado hore way kusoo hordhigtay, waadna kasoo gudubtay. kuwa soo socdana insha allah waad ka gudbaysaa. bas waxay kaaga baahan tahay inaad sabartid, dulqaadna aada la timaadid, aadna dadaashid. waqtiyada adag waxay adiga kaa dhigayaan qof awood leh. ogow walaal, caqabadaha iyo dhibtu uma imaanayso sabab la-aan. wax kasta sabab ayay leeyihiin. waxay u imaanayaan caqabadahu iyo dhibaatadu inay cashar ku baraan, inay ku baraan sabarka, inay ku baraan dulqaadka, inay ku baraan macaanka nolosha. maxaa yeelay wax aad si fudud ku heshay si aad ugu raaxaysatid waa adagtahay, laakiin markaad wax u dadaashid aa usoo dhibtootid, runtii markaas ayaad farxad dareemaysaa. tusaale ayaan ku siinayaa. meel buur sare ma aragtay, buur aada iyo aada u dheer, korkeeda ayaa qof waxaa la sameeyey, qof wuxuu sameeyey wuu koray wuu rafaado wuu dhibtooda, intaasoo maalmood bay ku qaadatay inuu buurta koro. meesha kor ayuu tegay. waxaa la sameeyey helicopter ayaa lagu soo qaaday, buurta dusheeda ayaa la keenay. labadaas qof isku dareen may dareemayaan? runtii waa maya. kan koray ee rafaaday farxad ayuu dareemayaa markuu meeshaas tago. maxaa yeelay wax ayuu xaqiiji, guul weyn ayuu xaqiiji uu ku haminayay. kan kale laakiin waxba agtiisa kama handi. caqabadaha waxaa lagu soo hordhigay waxaa weeye inaad casharka baratid, inaad sabarka baratid, inaad dulqaadka baratid, inaad noqotid qof awood leh. soomada garab. haddaba walaal, ha isdhiibin,
ha ogolaan guuldarro. adduunyadan ujeedo ayaa lagu keenay, ujeedooyinku way badan yihiin. ujeedada ugu muhiimsan waxaa weye inaad rabbi subxaana watacaala caabudid. midda kalena waxaa lagu dhaha walaa tansa nasiibaka min addunya, waa inaad noloshan meel sare aad ka gaartid. haddaba haddii aadan caajisin, haddii aadan isdhiibin, haddii aad yacni mar kasta aad koftid aad kacdid, runta waxaan hubaa inaad gaaraysid meesha aad ku riyoonaysid. dadka qaarkood caqabadahan waxay u arkaan nolosha lasoo gudboonaanaya inay tahay wax xun. ma ahan walaal, waxaa la fiirinayaa sida aad adigu uga falcelinaysid. miyaad isdhiibi oo isdhigan, mase waad kacaysaa oo horey aad u soconaysaa? qof raba ma jiro inuu dhagaysto qisada qof wax kasta hadiyad ahaan ku helay. dadku waxay rabaan inay dhagaystaan qisada qof usoo dhabar adeegay dhibaatooyinkii iyo caqabadihii ay nolosha soo hordhigtayna u bedelay inay tahay hadiyad. ugu dambeyntii walaal, waxaad rabtaa in lagu arko inaad tahay waxba yahay, bas waxaad rabtaa inaad noqotid qof la ixtiraamo, la tixgeliyo, meel sare bulshada ka jooga. ma waxaad rabtaa in qisadaada baalalka dahabiga lagu qoro, mase waxaad rabtaa in qisadaadu ay noqoto sheeko bareley? noloshu waa tartan. haddaba waxaan kaa dhex guuxaya waxaan aad ku riyoonaysid markas, waxaan aad ka seexan leedahay u badal dhab. caqabaduhu nolosha kusoo wajahayana waxay u imaadeen inay adiga kaa dhigaan qof sare oo awood leh. hadda laga bilaabo walaal, awoodahaaga ka shakin. adiga waad awoodaa caqabad kasta oo nolosha inaad ka gudubtid, wax kastana inaad samaysid aad ku riyoonaysid oo awoodaa. meel kasta aad rabtid inaad gaartidna waad gaari kartaa. haddaba maanta ku noqoto maalin cusub. waxaan loo dhibtoon dheeftooda lama helo. insha allah wixii fikrada qaybta koontiga nagula wadaag. asalaamu calaykum.